kulan wacan wanaagsan dhageystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudan oo halka naga daawanaysaan warbaahinteena nagu miidiya warkana waxa idiin soo tabinaya aniga wariye kaafi qoyste iyo cabdiqani wiish aan ku bilowno qodobada wararkeena ugu doorkaroon faahfaahin ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho ciidamada Puntland ayaa go'doomiyay dagaalamayaasha Daesh laga saaray toga Miirale kuwaas waxay hayaan qodobada wararkeena ugu doorkaroon haatan ku soo dhawaada warkeena faahfaahsan warar dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar culus oo xalay kooxda al-shabaab ay ku qaaday fariisimo ciidanka xooga dalka iyo kuwa nisa ay ku leeyihiin deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho wararkan ayaa la sheegay in kooxda ay ku bilowday qaraxyo kadibna uu xigay dagaalka foolka fool ah oo labada dhinac halkaasina uu ku dhaxmaray kaas oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa lagu soo warinayaa inuu geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kala gaaray labada dhinac hase yeeshee weli si rasmi ah looma oga inta uu dhan yahay khasaaraha labada dhinac ma jirto wax ka soo baxay war ah dhanka laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalka xalay ee ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho dagaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay kooxda al-shabaab muddooyinkii la soo dhaafay ay si weyn u soo kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan fariisimaha ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyinka ku yaala gobolada bartamaha koonfurta Soomaaliya ciidamada Puntland ayaa go'doomiyay dagaalamayaasha Daesh oo laga saaray toga Miirale qodobareedkana waxay noo dhameystiriyay wariye cabdiqani wiish ayaa sheegtay inay ciidamadu ay si buuxda u go'doomiyeen dagaalamayaasha kooxda Daesh ee laga saaray toga Miirale halkaas oo dagaal culus ka socday muddo 2 maalmood ah war kooban oo ka soo baxay howlgalka ilaa ayaa lagu sheegay inay saaka ciidamada la dagaalanka argagixisada Puntland ay howlgal ka wadeen inta u dhaxaysa Miirale iyo Moqorro sida lagu sheegay warka raadiga dagaalamayaasha Daesh ayaa u baxsaday dhankaas iyo Moqorro fayeenka howlgalka ilaa Generaal Maxamuud Axmed Fadhiga ayaa sheegay in ciidamadu amniga ay la wareegeen ceelashii iyo ilihii saadkii iyo cuntadii ay kooxda Daesh ay ku lahayd toga Miirale waxa uu intaa ku daray howlgalku intuu socday waxa la dilay xubno ka tirsan kooxda isla markaana ay ka go'an tahay in dagaalamayaasha iyo horjoogayaasha Daesh loogu geli doono meel kasta oo ay galaan shalay ayay ahayd markii ciidamada Puntland ay fashiliyeen weerar ay ku soo qaadeen kooxda Daesh kuwaas oo qaaday fariisimo ku sugan yihiin shalay ayay ahayd markii ciidamada Puntland ay fashiliyeen weerar ismiidaamin ah oo ay kooxda ku soo qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada gudaha u galay toga Miirale sida uu sheegay afhayeenku 10 ismiidaamiyaal ayaa isku dayay inay weerar mid ah ku soo qaadaan fariismaha hore ee ciidanka balse 8 ka mid ah waxaa toogtay ciidanka halka labada kalena ay isqarxiyeen iyagoo aan soo gaarin bartilmaameedkooda